magaalada nimankaan joogno waxa la yiraahdaa Kabiri Bosh waxay ku taala meel kala baydha oo jidku ku kala weecdo jidka imka halkan maraya agtaydu mid waxa uu tagayaa dhinaca waddanka Tanzania dhinaca kalena waxa uu ka jidka tagayay ilaa waddanka Congo iyo magaalada Zambia ku taala Ndola ilaa 200 kilomitir baanu dhinaca waqooyiga uga soo kacnay magaalada caasimadda waa Zambia ee Lusaka goobtan waxa la ii sheegay inay dadka Soomaalida taariikh aad u facweyn u leedahay gawaarida iga dambaysa waa arkaysaan waa kuwii dhowr iyo 60kii ragga Soomaalida ay wadan jireen shixnada u kala qaadi jiray wadamada ku yaala gobolkan kuwa cusub ay ka shaqeeyaan waa kuwan ilaa imika waxa weeye halkan Kabiri Bosh waxa weeye magaalo aad iyo aad muhiim ugu ah dadka Soomaalida khaasatan dadka gaadiidleyda jidkan iyagu mara gawaarida ku dhowda la oran karaya waa qaar madxaf yaala ama museum oo taariikh walba oo ay lahaayeen gawaaridii Fiat-ka la oran jiray jidkan mari jiray ayaa halkan yaala kuwoodii ay u dhamaatay magaaladani waxa kale oo muhiim ay ku tahay oo dad fara badan oo jidkan maray ay ku garanayaan hay'adda halka ku taalo cilmi restaurant la yiraahdo oo muddo dheeriyana halka ku taalay oo ragga gaadiidka wada iyo dadka kale safarkii ay markaasi wax ka cunaan waa dadka ilaa Congo tagaya ama ilaa waddanka Tanzania ninka odayga makhaayaddan iska leh ayaa nimka la yara sheekaysanaya makhaayadda waxa iska leh Shire Faray oo ninka odayga Shire aad iyo aad ku salaamay Shire waxa la ii sheegay makhaayaddaadu ay aad iyo aad caan u tahay marka la eego dadka safarrada Soomaalida ah ee jidkan mara muddo inta laga makhaayaddu ku furay 15 sano iyo 15 sano waatay intii ka horeysayna waa ka warqabay oo meelahan aan ka dhoway haye marka 15 ka sanadood waxaan u malaynayaa ka badan baad deganeed miyaa waddanka Zambia 69kii dadkii soo galay oo dambaar ka mid ah dadkii dambe haye 69kii dhawaa 69kii dhawaa soo galay haye way yeeshan in badan baan joognay adugu waanu kala horreyn oo dadka dambaan isku tiriyaado wali nin waddankii yar ka soo maqnaa iyo shiro dib ma ugu noqoto waddanka hal marahan tagay oo hal sano soo galay marka dadka makhaayaddan wax ka cunaa ma Soomaalida un baa mise dadka kale safarradiina wax waa ka cunaa cid walba waxay laakiin dee cuntada waa qadayno cuntadu aad bay u wanaagsanaydo waa teenii Soomaalida dad badan baan oo ku soo cuntada cuntada kale waddanka laga cuno iyada ma samaysaa waa tahay caleenta aan miiska soo dhigay baa ka mid ahay haye marka ma sha Allah dadka wadaniga waa cunaan oo waliba raashinkooda aad u badiyay raashinkooda aad waa tahay marka gaadiidleyda halkan martay Soomaalida maalintii inteed ku qiyaas lahayd maalintii ilaa iyo waxa marda marba waasi mar waxa marda ilaa iyo afartameeyo mar 20 mar 10 adigu markay ugu yartahay 15 baa marabay qiyaas muddo dheer baad Zambia joogtay gaadiidka Soomaalidu ay leeyihiin ama ay wadaan jidkan imka mara iyo kii waga timi mari jiray keeba badan baa oran kan imka badan waatay kii hore baabuurta halka taal baa ka mid ahayd oo u badnay Soomaalidana xoogeedu ahaa iyo kambaniyaasha way Fiat-kaas iyo baabuur kale oo kusoo la yiraahdo iyo waxyaalahaas la haystay adugu kambaniyaasha u soo horeeyay Ismaaciil Naxar Allah u naxariisto Yaasiin Xasan ninka la yiraahdo ina Xaaji Xasan waatay ragaas waa wada dhintay Allah u naxariisto Ismaaciil baa u dambeeyay way marka gaadiid iyaga oo aado waxa la ishaaran jiray kambaniyaasha ugu waaweyn baa loo hayaa marka bariga hore adiguna diro walba ku dhaadmay anugu
مرنا دروه بانها مرنا واطي noloshaanu hadda meeshaynala aad baan ugu raadinaya aad iyo aad baad umahadsantay aad iyo aad baad umahadsantay halkanna waxaa taagan nin kaloo odaya oo dalka soomaalida ka mid ah cirguje markaad dhalatay kii lagu bixiyey laakiin maaha sooma markaan dhashay waxaa lii bixiyey dhagaafa lagu bixiyey dhagaafaa lii bixiyey way dhulkayga dhagaafaa naanaysi ahaa haya haya halkan afrikadana waxaa lii bixiyey cirguje haya goormaad markaa bedelatay taarikada cirguje aad la baxday taarikada dhowr jeeraan bedelay mar maxamed ismaaciil baa la dhihi jiray mar waxaa la dhihi jiray maxamed ismaaciil mar waxaa la yidhahaa hadda cid waxaa la yidhahaa yuusuf cali shire waxaan ugu kalifaya waddanka ajnabiyaanu joognaan ugu kalifaya ma garatay maad garan marka aad baan u fiicannahay waddankaan anigu waxaan imin 1981 كوبي ستيتي دابو مركاش شلي بات شلي بات ninkaana leeka way adiga calaa xaal ahwaal kasta ka soo marnay la xig la fuqoonay taajirni imisa wadan baad ku soo noolaatay wadamada gobolka waxaan ku soo noolaaday Sayid oo adal aad u ballaaran oo aan dhowr meelood kaga noolaa Uganda Kenya Mozambique waan galay 1981 82 waxaan galay meesha South Africa markii koloniga ahayd way markaan borderka xoogaa dhaafay yaan waxaan arkay sidii dadka isticmaalka loo dilayay haa shaabo baan la dhacay adigu ilaahay way iga soo daayay ka soo qay ka bacdi xaggaas ma baado imika dee gaarigan aad wadataa booyada halkaad ka shaqaysaa imika waxaan wataa gaarigan booyada kuwa kalena waa leeyahay laakiin gaarigan waa ku jira saadiikada sokor bay u dhacay sidaa laga fikiraya dalkeedii way rumaad garan dalkii ma ku noqotay intaad ka timi kuma noqon waxaa la ii sheegay sheeko la yaab leh inaad leedahay oo la yidhaahdo iscaddee bal hadda dadka barnaamijka daawanaya sheekadaas waxaad uga sheekeen waxaan imi 1981 baan waxaan imi meesha la yidhaahdo Tanzania safaaradda Soomaaliland tegey safaaradda Soomaaliland markaan tegey ninkii qunsulka ahaa baan soo hor fariistay nin la yidhaahdo Suufi baa dhabarkayga soo istaagay qunsulkii aan u warramayo oo le baasaboor baan rabaa markaa Ciraaq baa loo dhoofi jiray xoogaa lacagaan haystaa waxaan rabaa in Ciraaq u dhoofo baasaboorkii marka halkaa muraayad baa ku taalla Suufi fartu saayiri markuu la hadlay qunsulkii fartu saayiri waa la diiday waaga waxa socday jamhadaha socday haya jamhadaha afkoodana raacay marka dadkii jamhadaha taageerayay baa lagu tirinayay way laakiin anigu hor ilaahay baan isaga socday adigu waa soo tagay Tanzania waxaan soo qaatay baasaboor waxa la iga qaaday kastakana friend waan noqday waa soo qaatay waan kii sagaalaad markaan soo qaatay oo la iga qaaday baan baabuur Soomaaliyeed baan ku soo galay halkaan waxaan tagay Lusaka waxaan ri baasaboor baan rabaa isi soo caday baan isi soo caday baan haya waxaan ri waa fikiray maxaa isku soo cadaya warbal waxaan fiir odayaashii iyo dadkuna waa ku yaraa waddanka waxba uma sheegin haya waxaan sameeyay markaa maalin saddexaad labaad baan ku soo noqday isi soo caday baan maalin saddexaad baan ku soo noqday isi soo caday baan maalin saddexaad waxaan soo qaatay 2 kiilo bur way dharkayga aan qabay baan dhalada iskaga shubay burka ma daqiiqdii baan isku shubay way waa isi soo caday markaan isi soo caday waa meel walba xataa dhigaha meel walba iska geliyay indhaha iska geliyay meel walba oo aan faturada u ekahay baan imi waa arooriyo gaari fiyaada wuxuu iga soo qaaday oo han wuxuu keenay safaaradda gaarigu iga tagay mugti birti geejka hayd baan qabsaday saasaa birtu qabsaday waa ruuxay birti baan ruuxay waardiyi baa ii yimid garuun buu soo qaatay wuxuu rabaa inuu gacanta iga ku qaatay marka adiga bahal buu ii qaatay masajin buu ii qaatay ma qaadano wuxuu ii qaatay inaan binaadana laga leeyahay waa u jeedaa laakiin wuxuu shaydaani buu xagga la idinka soo galay wuu sheegay haa waxaa maqlay safiirkii ninkii la oran jiray Michael Maria ilaahay meel khayr way baan leenahay Soomaad garan warkadaa buu yahdilina warkadaa buu waa igu soo orday waa ii war maxaad ahayd adeero nin Soomaali aan ahay baasaboor baan rabay 3 jeer baan isi soo caday baa la yiri waxaan isku cadeeyaan garan way bur baan isku shubay baan ee bahal mihi baan kafur buu yiridda way wuu ka xumaaday xoogaana yaani qiiradana xoogaa yare uu muusooday markaas waxaan gacantii soo qabtay sidii ilaahay xafiiskii buu galay ma uu joogo markaa kiima soo adigu waa u yeeray waa yimid wuxuu yiri ninkan ma taqaana wuxuu yiri ma garanayo ninkan ma iscadeeymo war miyaan darrad ku yimaado tii koros ku yimaado tii ku yimaado
وحيري وحيري نكان وصومالي سيسوع عضين هذا الماء أفكا عضين هذا النوع باسبوس وايك حي كل كيسي ذكر عروت بيجي بافك الجليي وحيري وحان اسكهف اسكجف وبيسوي بياكل الباقو وبيستي مركا عن ميرتي فناد بيسي هي أدر يا حنا وجهنا كور كان اسكتور كور كان كشو حال أدر واحد كان يوقع شو ذا بوقت إلى كور نقاطه باسبور نقاطه سو ما هذا واي فيسك حتى يسوي بحيان مالي أنا فيس ما بحيان واي واسكتي أنت كده ما يسأل كده نجوبنا وحن أدوك سامبيا marka aad u eegto wadamada kale ka soo noolida Afrika هل كان دقي لها سامبيا waxaan dhigi lahaa wadanka labaad oo Sambia baan ka dhigi lahaa wadanka labaad oo Sambia Soomaali wadanka labaad baan ka dhigi lahaa hadii la iga yeelayo dadkeedana hadii ay wadankayga tagaan fiisa ma weydiin haddaan ku kulmi lahaa ninka Sambiyaanka waxaan sidii wanaajiyay ba jeegaysa say noo wanaajiyay waa dad aad wanaagsan sharci baan la siiyay baabuurtaan wadnaa baabuurtaan ka shaqaysanaa sharcigi laguma odhan soo cadeen sharci marda ma leeyma dhihin soo cadeen baasaboorkii baan qaatay waan ku shaqatay marka hadda waxaan ku farayaa fartiin aan ku farayaa Soomaali anigu waabaan anoo duray wala oo Mombasa ka soo baxay meesha leeyahay today baan waxaan ugu yeeray baas wadada ka baxay lug baa u qarxay wadada ka baxay waa dabaystaan Soomaali ku jira baan dhihi jiray anaga baabuur 10 qof baan ka helay متى تردي قارف يا ذا من تبقى في السوق نيروبي كان سومادا ويا يا وقف صريح هذا وين كاس بار خير الله يسلمك أنا مركز الصومالي باستشهاد مالتها المقلوب حضان ليكم وكأن وحنا قارنا خطر بان قارنا هذا هل كان ماشي الله يراه كبير وحلا وحر ده تحريبه وحيان أور يطلع نلا يضعون قاب بقالين تكين بأقرنا قبر هالكا هذا ويل بعضها يرقى صغيرة وأفريت تنجيله والمحكمة يحكموها بدك الوالد حكمت بروبوك وما نجي في إنجليز ولا غاب وي ومركب حلقوا عليه حد كي تزاد حد بالقول عليه ويل كي كهري ركبة إنه لك السوق من تيجي تبال السوق ويكتب tani intii ay burburtay dawladii dhexe ee dalka Soomaaliya wadanka Zambia oo ku yaala dhinaca koonfurta xiga ee qaaradda Afrika waxa marin uu noqday kumanaan Soomaaliya oo dhalinyaro badan oo beegsanaya wadanka South Africa kuwaasoo marar fara badan dhibaatooyin ay ka hor yimaadaan dhibaatooyinkaasi oo noocyo fara badan leh waxa lagu soo koobay buugan oo magaciisu yahay 7,000 kilomitir iyo koonfur Afrika oo ka hadlayay waayaha ay mutaan dhalinyarada taariibayaasha ee Soomaalida ee beegsanaya wadanka South Africa buuggan waxa qoray Jamaal Cali Barre Jamaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku soo dhawo barnaamijyada Herer iyo Zambia waan dhawahay Cabdisalaan waan mahadsan tahay saaxiib waa kaga mahadcelinayaa buuggan waxaad u bixisay 7,000 kilomitir iyo koonfur Afrika magaciisu macnayn badan uma baahna nuxurku xambaarsan yahay muxuu yahay walaal Cabdisalaan waxa weeyaan buuggan wuxuu xambaarsan yahay cawaaqibka ay la kulmeen dadkii Soomaaliyeed ee 19 ka soo qaxay Soomaaliya ee ilaa ma iyo koonfur Afrika beegsanaya halkaas oo ay meesha qaaradda ugu horumarsan oo ay doonayeen inay nolol cusub ka bilaabaan marka tacadiyada iyo dhibka badan oo ay mareen iyo dhibaatada markay South Africa tageen laftigeeda ay la kulmeen ayuu ka hadlayaa buuggan marka sheekooyinka ama waayaha ay kula kulmaan jidka dheer iyo safarka dheer ee South Africa ay u galayaan ma tallaabo buugu qorayaa mise waa wadankii Soomaaliya ka soo anbabaxeen iyo South Africa ay beegsanayeen wuxuu u qorayaa Cabdisalaan tallaabo ayuu uga hadlayaa carqaladda ugu weyn waxa ay dadka Soomaaliyeed dalka badankooda kuma ay bixi jireen haday baxana waxay aadi jireen dhulka Carabta waxay u qabeen Afrikadu inay tahay meel wax kala ah oo ninka East Africa waa la yaabi jiray
markaa dadkii af aan aqoonin iyo luqad la'aan iyo travel document la'aan iyo dhibaato badan ayay la kulmeen marka tacadigaas xanuunka badan ayaan doortay in aan buuggan ku ururiyo maxaa kugu dhaliyay adiga inaad buuggan qortid waxa igu dhaliyay waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay ee 1991kii Soomaaliya ka soo qaxa intii aan dawladda Soomaaliya burburin ama ay si fiican u dhamaanin xamar aysan ka bixin marka riyadeeduna waxaan isku qaldi jiray magaca Zambia iyo wadanka la yiraahdo Mali ayaan isku qaldi jiray markii aan dhul maray oo aan arkay waxyaabaha ay la kulmay iyo kharash la'aanta iyo dhibaatada iyo tacadigii ayaan waxaan go'aansaday inaan ururiyo wixii dhacay sheekooyinka markaa ugu la yaabka badan leh adiga xaggaaga buuggan ku qoran maxaa ka mid waxaa ka mid ah buugga koonfurka horta deganaa markii aan qoray waxaa ka mid ah dadkii ugu horreeyay ilaa 7-8 qof oo Soomaaliya ayaa lagu dilay 98-99kii markaa naftigayga ayaa la afduubay oo galbaha ka mid ah niman cadaan oo fly square ayaa afduubay waxayna igu waa ciidamada Blaze-ka gaarka bay sheeganayeen way markaa nimankaas ay afduubay waxaan u malaynayaa ilaa 7 xabadood waa la igu riday gacantana waxaa la iga geliyay irbad ayaa la iga daldaloolinayay si xabadu markaa kugu dhacay maya nasiib wanaag maya waa tay psychological waxaan akhrinayay inaysan doonaynin inay dilaan laakiin kuwaas ay doonayaan inay dhacaan oo ay baartaan nasiib wanaagna markaas iyada lacagtay doonayaan maba aan hayninba magaaladee bay ahayd markaa waa Johannesburg bay ahayd gartay markaa dhibaatooyinka Soomaalida ku dhacay ayaa ugu la yaab badan lamiya ayaa ugu la yaab badan waxaan kale u soo joogay raggii ugu horreeyay groupkii ugu horreeyay oo South Africa lagu dilo ayagoo dukaamo iyo hawkara ka shaqaysanaya markaa saadaashayda waxaan dareemay waddanka kan in dad badan oo Soomaaliyeed ay lafahooda ku waayay doonaan intaana ka soo guurin buuggaana waxaan u hibeeyay dadkii Soomaaliyeed ee naftooda ku waayay South Africa iyaga oo si xaq iyo xornimo ah nolol u raadinaya Jamaal bal hadda waxaad ka soo bilowdaa sheekada tahriibayaasha markay Soomaaliya ka soo baxaan qof dhalinyaro laga yaabo inaanu wadankiisa hore uga bixin laga yaabo inaanu af kale u garanaya oo Soomaaliga dhaafsiisan aanu jirin laga yaabo inaanu sahayb badan sida nin ama sahayb sida nin laga yaabo jidka inaanu cidna ka garanay qofka sidaas sabab u safraya runtii hadda way sahlan tahay moodaa oo waxaad moodaa dadkii Soomaaliyeed ee korkii hore soo qaxay ayaa establish noqday oo degay wadamada markii dadka soo qaxay wadamada degeen waxay ku saacidaan dadka Soomaalida ah inay caawiyaan meel kasta oo ay marayaan example hadda wadanka Zambia oo aan joogno qof kasta oo mara waa la caawiyay xagga nooliga xagga sharciga haddii dhibaato ku dhacdo hadduu xanuunsado laakiin waqtiga annagu aan maraynay runtii waxaa jiray wadamo badan oo aan hal qof oo Soomaaliya uusan joogin sida Mozambique oo kale 93gii markaan maray jabhadii Renamo ayaa wali dagaalamaysay oo goob dagaal bay ahayd xaqiiqiyan way ragii hadda shaashada iga daawan doona way joogaan haay marka absalan marka waxa dhacday waxay ahayd Portuguese bay ku hadlayeen dadka Englishka iskuulada xamar ku bartay xataa ma practice gareyn jirin oo afka kuma hadli kareenin marka dayac aan qiyaas lahayn ayaa jiray baan dhihi karayaa guud ahaan ka adiga ku soo gaaray mooyaane dabcan intii buuggan aad qoraysay waxaad waraysay la yeelatay dad fara badan oo kale iyaguna safaradaas oo kala galay sheekada aad is odhan karto way ugu la yaab badan tahay ee qof Soomaaliya la kulantay ma nala wadaagi karaysaa South Africa oo kale ayaa igu yaab badnayd nimankii dhalinyarada ah oo wareejin jiray Soomaanka oo nolosha ka raadin jiray 94kii Cape Town magaalada la yiraahdo oo inta loo yeeray la weydiiyay ma haysaan cidiye jar marka suunka bay soo taagan ma haysaa baalka la tissue waa baalka facility-ga ayagu marka suunki qoorta ku jira uu soo bixinayo oo taagaya af kale to baska ay soo fuulaan hatta hadii la yiraahdo mararka qaarkood nooliga bixi suunka illa ma loo macneeyo oo qof Soomaali oo kale u helo marka waxay ahayd very difficult dadka joogay waxaan ku malayn karaa sodomeeyadii qof ugu horeysay ayaa ka mid ahaa hal guri ayay wada deganaayeen noloshu waxay ahayd wax aad u adag markaan hadda ogaado ama arko sida ay guryaha iyo hoteelada iyo businesska Soomaalidu u sameeyeen waxaan arkayaa inay yihiin dad unique ah Soomaalidu oo ajaa'ib leh oo nolosha ka mara keena Jamaal wadamo fara badan oo kale
oo afrikadaaba dadka soomaalidu ay degaan oo ay ka shaqaystaan oo zambia ay ka mid tahay oo kuwo kale oo south africa ay deris yihiin ay ka mid yihiin south africa dhibaatada ka taagan ee u gaarkii waa maxay dadka ajnabiga hal lagu leynayo ama lagu dhacayo waddan kale oo south africa la mid ah kuma yaalla qaaradda africa waxaa jira taariikhiyan ayaa waxay soo mareen xanuun waxaa jiray asliyan in midabta koor uu jiray in dadku aanu isdhexgeli jirin communitygu in qolo waliba ay qolada kale cadow u ahayd midda kale cabdisalaan oo hilmaamin meesha waxaa yaalla wealthy iyo barwaaqo aad u fara badan marka wealthiga ayaa waxay imaanaysa tuug wuxuu tagaa ama wax ku dilaa meesha wax yaallaan dadkuna dad arxan badan ma aha oo xenophobia waadiga ka warqaba waagi dhaweyd waa dad la cunsuriyeeyey oo ayagu dhibaato ku soo koray marka cid ay u naxayaan ma jirto marka waxaan qabaa meeshaas inay tahay meesha ugu halis badan ee Soomaalidu ay ku noolaato laakiin way ka biyo keeneen oo hadda waadiga arkay cabdisalaan waxa laga tabay waa tahay marka adiga san qiyaasayo ama hadalkaaga ka muuqata ma dhibaatooyinka South Africa marka ka soo celiyay maya xaqiiqiyan waxa jiray marka ugu horeysa nafta ayay tahay inaad maaraysid moogta waxaan dareemay South Africa markii aan ka guuray 2000 in xaaladda soo socota ay ka dhibidnaan doonto waxa ii muuqanaya marka ayaan qiyaasay midda kale Zambia ayaan horay familiar waddanka aan aqaanay oo aan soo maray buu ahaa marka halkan ayaan dib ugu soo laabtay oo aan business construction ka bilownay waan ku fiicanahay alxamdulillah waa ku nabdoonahay hanti iyo guryo ayaa lagu hayaa caruur qofka akhriya buugaagan 7,000 kilomitir iyo koonfur Afrika waxa ugu weyn uga kordhaya maxay yihiin badalana hubaashi waxa ugu weyn oo ugu kordhaya waxay tahay waxa dalka Soomaaliya ku dhacay ayuu ka ogaanayaa waxa dadka baxay ay la kulmeen marka buugan waxaan ku ururiyay wixii ay la kulmeen dadkii ka qaxay Soomaaliya si ay u fahmaan waxa ka dhacay Soomaaliya inta la kaayeen qofka duruufaha aynu soo sheegnay ku tahriibaya baasaboor wadan sharci kala wadan waxba wadan intee ku qaadatay inay South Africa ku gaaraan mararka qaarkood waxaa dhacday inay ku qaadato 3 4 5 bilood inay ku qaadato mararka qaarkoodna sanad bayba gaartaaba maxaa yeelay qofku sidii qof dad qalata eriyootay markuu dad Soomaaliya u soo gala asagoo waxba haysanin uu degayaa wuu fadhiyaa cagta ayuu dhulka ku haynayaa muddo uu ku nasanayaa kadib ayuu haddana karaar qaadanayaa markaas ugu yaraan 6 bilood ilaa sanad way ku qaadataa runtii laakiin waxaad leedahay xaaladda imika South Africa ka jirta inkastoo mararka qaarkood ay wax ka dhacdhacaan sida hore way dhaantaa miya waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ayaa bir ah dadka Soomaaliyeed ayaa dadnimo leh meesha aan kaaga sheekeynay ayagoon af aqoonin ay tageen cabdisalaano lagu dilay hantidooda lagu dhacayo ayaa waxay noqdeen taykuuno iyo dad xoolo fara badan ka sameeyay markaas galad iyo amaan intoodii laakiin ka nabad gashay intoodii ka nabad gashay weeyaan dadku ma sinna markaas dadka Soomaaliyeed kartida iyo quality Ilaahay u abuuray ayay South Africa ku cadeynayaan inay yihiin dad strong qofka Soomaaliga ah ama Zambia ku noolaado ama Afrikada kale hana qaaday ku noolaadeen maxaa uga kordhayay bay kula tahay markay timaado qiimeynta waddankiisa uu qiimeynayo wax weyn ayaa u kordhayay cabdisalaan hubaal qofku waxa ku beermaya wadaninimada uuna jeclaanaya maanta waxaan ku hubaa 28 sano ka bacdi markii aan Soomaaliya ka soo qaxay wali wadnahaygu wuxuu yaalaa Muqdisho runtu waa sidaas qof kasta waxa u kordhayay inuu dalkiisa jeclaado low an order iyo kala dambeynna la helo Jamaal Cali Barre aad iyo aad mahadsantahay cabdisalaan thank you وهاجا intaasna waxa ku dhan waraysigan oo magaalada Lusaka ee xarunta dalka Zambia aan kula yeeshay qoraaga buugan 7,000 oo kilomitir iyo koonfur Afrika oo ka hadlaya wixii ay muteen dadkii tahriibayaasha ahaa ee faraha badnaa ee beegsanayay waddanka South Africa marka ay ka soo baxaan dalka Soomaaliya Jamaal Cali Barre aad iyo aad mahadsantahay mar kale
intii aan ku sugnaa magaalada Lusaka ee xarunta waddanka Zambia dadkii kale halkaasi aan ku kulannay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdi Said oo ku magac dheer laba goole Maxamed markiisii hore waxa uu ku dhashay waddanka Kenya waxaanu ku soo noolaaday wadamo kala duwan oo qaaradda Afrika ku yaala gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha iyo waliba bariga Afrika maxamed baan hadda noloshiisa ka wareysanaya maxamed ku soo dhawow barnaamijyada Hareeriya Zambia waa soo dhawahay absalaam maxamed oo markii dhaweyd aanu sheekaysanaynay af Soomaaliga aad iyo aad buu fiican yahay waxaad ii sheegtay inaad Kenya markii hore ku dhalatay bal ii waran Kenya xageed kaga dhalatay waxaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Isiolo Kenya magaalada Isiolo Kenya waa dhinaca bariga waddanka Kenya naam deedna intee leeg baad ku gaadhay halkaa halkaas waxaan ku gaaray ilaa Sanjir deedna waad ka guurtay waan ka guuray reerkayagii baa ka soo guuray waxaan u soo guurnay Tanzania waatay Tanzania muddo intee leeg baa ku noolay Tanzania waxaan ku noolayn ilaa adiga 10 sano halkaasaad markaasaa qiyaasayo iskuulka ka bilowday meel halkaasaan ka bilaabay magaalo ku taalo Tanzania oo Iringa la yiraahdo waan iskool ku bilaabay ka bacdina dib baan u laabtay Kenya ku laabanay markaan Kenya ku laabanay ilaa aan naxariistay hooyaday oo waxay ku dhimatay Tanzania ka bacdina waxaa la geeyay Uganda islaan eedaday ama waxay geysay Uganda waa tahay Uganda markaa muddo intee leeg baad ku noolay Uganda ilaa 1977 baan ku noolaa iskoolka sarena waxaan ku soo baxay Uganda magaalada ku taalo Gulu magaalada ku taalo Uganda deedna xaggan Zambia u soo dhaqaajisay Zambia u soo dhaqaajisay waxaan soo maray Kenya Tanzania ilaa Zambia markaasna waxaan soo socday oday aabahay ka shaqeyn jiray waddanka Zambia oo dareewar ka ah deedna aabaha baa ugu timi halka aabahay baa ugu yimid marka waxaan siri intaad shaqo kale qaban lahayd bal baabuurta raac aabahay dareewar buu ahaa baabuur ka mid ah jiray baan raacay oo waxaan noqday lorry boy ama crash boy loo yaqaan waa tahay ilaa dhowr iyo 10 jir weyn baad ku gaadhay saad ii sheegtay Uganda intii Zambia aanad imanin inkastoo maxamedow qoyskiina iyo dad kale Soomaaliya oo eedadaa ay ka mid tahay aad la noolay haddana noloshaada ma tagin dhulka Soomaalida ama Soomaaliya baan idhaahdaa weligay Soomaaliya ma arag manna martin xuduudka hataa ma gaarin Soomaaliya xitaa gobolka waqooyiga bariga Soomaalida ay degtay Kenya kuma soo noolaa inta badan waxaan ku noolaa waddanka Zambia daf Soomaaliga laakiin aad buu fiican yahay maxamedow si kuugu suurta gashay markaan aad baratay Soomaaliga waxaan ku bartay dadka aan la noolaa Zambia ala shaqaysan jiray waa af Soomaaliga waa tahay ka bacdina waxaa tagay 1999kii waxaan aaday South Africa South Africa in muddo ka soo shaqeeyay ilaa 10 sano ah waxaan ahaa delivery man waxaan ka shaqeyn jiray meel pizza qolada markaa cuntada qaadaad ahayd ee dadka soo dalbada u geysa magaaladee markaa Pretoria imika Lusaka ku kulana Pretoria maxaa ka soo celiyay markaa iyo South Africa Pretoria iyo South Africa waxay iga soo celiyay dhibaatooyinka badan aan kula mid South Africa sida ay u ogtihiin xenophobia inta ka dhacday waxa weeye cunsuriyaddan dadka ajnabiga lagu nacam kadib baa ka soo cararay waddankiiba ku soo noqday Zambia oo korintii aanad tagay South Africa miyaanad ka warhaynin in nacaybka saas ajnabiga loo qaba ma markaas ma ogeen mana ka warhay way marka xagga tagay muddo aan joogay baan ogaaday in ay South Africaanka ay nacab yihiin dadka ajnabiga waa tahay hadda nasiib baad lahayd iyadoo dhibaato lagu gaarsiin baad ka soo noqotay alxamdulillah ana waxba la gaarsiin baa ka soo noqday waddankayga ku soo noqday Zambia waddankan aad u jeclahay way Zambia
wadamada faraha badan le aad ku soo noolayd Kenya aad ku dhalatay yaraan baad kaga tagtay Uganda Tanzania Zambia South Africa sida hadalkaa ka muuqata Zambia ugu jeceshay miya Zambia ugu jecel waad inta wadan aad soo maray Zambia marka lagama yaabo in kanaad meel kale u dhaqaajisay waa laga yaabaa inaan mar tago Soomaaliya waa jeclaan lahaa laakiin Soomaaliya waqtigan hadda dhibaato u ka tahay maxaad warka haysaa Soomaaliya markaad leedahay dhibaato ka tahay wararka inta badan waxaan aragnaa in qaraxyo badan ka dhacaan Soomaaliya iyo dadkii oo iyagii aan isfahansaneenba xagga dhinaca siyaasadda marka taasaan ugu kalifaysaa inaan dib ugu laaban oo ama wadankii aan tegin soo fiiro wadamada faraha badan le aad ku noolayd dhaqamo fara badan baa jira oo cajiiba oo dadku u leeyahay oo Soomaaliduna ay aad ula yaabaan adiga keeba kuugu daraa waxaa igu darnaa dhaqanka Zambiyaanka Zambiyaanka markii aad rabtid inaad naaguusatid waa sidii dhaqanka yagii oo Soomaaliya ah waa inaad 10 xoolo oo lo markaa aad bixisid ma garatay haddana mideeda kalena yani waa inaad inta badan waa inaad luqadooda barataa oo haddii kale gabadh lagu siinayo miya gabadh laguma siinayo waa saas de markaa 10ka lo'dii sidaaba uma badnee meel la iska bixin karin intaas la iskuma bixin karo sababtoo ah lo'dii baa qaali ah wadanka waayo imisa la siiyaa lo'da neefkii waxaa la siiyaa $150 waa tahay Soomaalidu geel bay ka bixiyaan waxaa laga yaabaa geela qaarkii de neefkii la siiyo $100 oo $100 baa la siiyaa laakiin de wadankan qofkii wadaniga ah kama bixi karo waa inuu muddo soo shaqeeyo sanado soo shaqeeya caadooyinka kale ee Soomaalida laga yaabo inay ku noqdaan waxaan caadi ahayn maxaa ka mid markaad adiga aad Soomaali tahay horta wadankan waa wadan aad u fiican nabadgelyadeedana aad u fiican tahay maasha Allah dad dib badanna ma aha laakiin waxyaalo waxaa jira cuntooyinka yani reer East Africa aysan cunaan maxaa ka mid ah markaa waxaa ka mid ah chiir bay cunaan baashanka tarbiira la yiraahdo cunaan waa deerti iyo soort marka soorta iyaba la isku qaadayaa iyo jiirka iyo deerta Soomaali isku dayda Maxamed oo maaragta ma wali ma arkin hal mar ba waxaan isku dayay baasha dhagaal la yiraahdo kalluunka yar maxayga oo kalluunka yar dhasha kaas waa iska caadi ma ahayn kaas caadi laakiin Soomaalida wax kale u haystaan والله ما عنا كان ما كاس ما عنا واضح كاس عنا وحواليه وعني بختي هاي عادوينك كلا محي نقل مدي محي نقل زابيان حق ريسبكت احترام كدتك واي عاد احترام كل في عني دتك انا عاد احترام ما دام عاد اديga ajnabi tahay inkastoo hadda dhaqankoodii isbedelay waagii hore lama arki jirin naag iyadoo iskaad qabta oo magaalada ku wareegaysa iyo waxaan dawooyinka la ismariyo naagaha hadda ismariyaan waxaa samay jiray berigii hore ma jiro maxamed oo imika caruur fara badan oo Soomaaliya ayaa Yurub iyo Mareykan iyo Australia iyo New Zealand iyo wadamada reer galbeedka ku dhalata bahalka Soomaaliga hada aad bay caruurta isula liitaan adiguna Kenya ku dhalatay Tanzania timi Uganda qurbun baad wareegaysay inta Afrika ba ha noqdeen intaas Afrikaan wareegay waxaad kula talin lahayd si caruurtii loo bari karaa Soomaaliga caruurta waxaa loo bari karaa marka hore beeska caruurta waa guriga waa in
reerka ama hooyadood ama aabbahood waa inay ka bartaan af Soomaaliga iyo environmentka ay la nool yihiin inay ku xiran tahay carruurta hadday raacaan ka soo qaad iyo carruurta Zambiyaanka af Zambiyaankii way baranayaan dhaqankooda way ka tegayaan afkiina way ka tegayaan af Zambiyaanka adigu maxamed ma ku hadashaa waa ku hadlaa waa tahay weliba afka nyanjaha maanjaha waa ka ugu weyn miya waa ka aad ugu hadla magaalada Zambia Cabdisalaam Herro iska waran maxaa lagu yiraahdaa afnaanjaha Mulibwanji Abdisalaam Mulibwanji naam wala garanaya markayna waageenahay Soomaaliya Mulibwanji waa lagu garanayaa inaad markaas waageen hay waa tabahadsanid maxaa lagu yiraahdaa Zikom waa mahadsan mi adagtay marka luqadaha in la barto Zambia laga ma ya luqadda nyanjaha ugu fiican luqadda nyanjada iyo Swahiliga isku dhow xagga laga hadlaa marka waxaa laga hadlaa Eastern Province waa gobolka bari mise gobolada bari ee Zambia Soomaalida aad wadankan ugu timi ama ilaa imka kugula nool sidaadoo kale ma yaqaanaa luqadaha laga hadla Zambia wallahi aad baa u yar yihiin xitaa shaah kuma cabi karaan miya hataa shaah kuma cabi karaan weli afkii Soomaaliya bataa هاي يد طبعا في إنجليزي يقولون تكلم عنه إنجليزي كان عليك أفضل شن كلمات كذي صوت محب بدنا برتنا في إنجليزي في إنجليزي والله هو برام وايد واحد كنا أوديال ما إلا أفرت إلا شنت كلمات شيء يقانا وكوي و how are you حاجة سعوتا where are you going هاي bring the truck give me the spare part وأنت نلشوا الخصيصة وأنت نلشوا الخصيصة واتري لكن سأصور تكشف محمد عمر كان يدور ضمفر بدن مرانو أي شدد بعدين أنت هذا بدن ما بحام أنت هذا بدن ما بحام وديار واحد سلا قار ويدنتين قارنا وعنولي قار واحد سلا almost 50 years بهذا الوقت كنا نقول يسوتك بكبر وأنا أفكر وأنا صومالي هنا وذني أنا وذني واتهاي محمد عبد السيد والله بقول لكم قاعدين أدي أضل ما هتصنت